الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ومدة مسلمين تمال كستيجوغان ومدة عالم كون وذا سلامنا. ما توحن دوني أنا إن يرو عيقلنا وكسام سن حنون كان كورونا فيروس دون كيابسي أم عابق كورونا فيروس ويغانو إن يرو براروجينا عن تدك كسي يوحي إلى إتحال كيغا. كل حنون كان كورونا فيروس وعابق وفيروس وحكينا adduunkana maanta ka yaabiyo oo ogtahay in wadamo badan ay maanta ay qaad la taageen xanuunkan waxaan isla fahansiinayna waxyaabaha marka horeyso qofka ay isku arkayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo sida aan uga hortagayno iyo maxay nala gudboon inaga ka caafimaad ahaan hota xanuunkan marka hore waxa keena caabuq la dhahdo baase virus baa keena xanuunkan waxaanunada aan hadda wali wax aan talaalan aan loo hayn vaccination loo hayn xanuunkan marka horeeyo oo qofka soo abaaro waxa lagu arki karaa abaase aad ku garan kartaa marka horeyso waxaad ku garanaysaa in nafahaantaada ama jirkaaga waxyaabo ay ka bedelan yihiin sidoo kale waxaad isku arki doontaa inaad aragto cuna xanuun abaase qaleyl waxyaabo waxa isku eegin xanuunkan nafa garaac laakiin waxyaabaha qaar ay ku kala duwan cuna xanuun ayaynu isku arkaynaa sidoo kale waxaan isku arkaynaa in jirka oo dhan ayada ka soo bilaabmaysa kuraamaha ama aan isku aragno jajab oo kale qofku inuu dareemo aba xanuun oo ka soo dareemo sidoo kale waxaan arki doonaa xumad kolba qofka ku soo kordhaysa ilaa marka dambe ayaan waxba waxaan ka jabinayaan loo heli doonin oo baase xumadaas aan la tacaali karin ku dhici doonto sidoo kale xanuunkani waxa uu ku dhacaa samabada mar haddii uu u gudbo xanuunkani way halis badan tahay sida uu qofku maxaydaan uga soo kabto marka haddii uu sababada gaadho xanuunkani waxa uu ku gudbayaa dhammaan waxyaabaha xanuunada kale oo dhan ay xanuunada ku gudbi karaan oo dhan ku gudbiyaa inuu karnaa sidoo kale waxa uu qaadashada ku gudbayaa waxa uu ku gudbayaa haddii wax droplet abaas hindisada waxyaabahaas ku gudbayaa qofka marka xanuunkan waa xanuun halis badan waddankeena joogna waad garanaysaa hadduu mar xanuunkani sababada oo afkarayo amba effect gareeyo way adagtahay sidoo qof uga soo kabi karaa xanuunkan waxa uu leeyahay calaamadahaas markaas ayaynu iska ilaalin karnaa yaan maxaayadaan inta ayaan sidoo kale xanuunka waxa lagu kala qaadayaa isku soo dhawaashaha qofka haddii maxaayadaan waxyaabo meelaha buuqa oo ku badatay bulshada ayaa si aad loogu kala qaadi karaa marka xanuunkan markasta ayaa u nugul baan leenahay waxaan u nugul dadka waaweyn iyo dadka yaryar dadka waaweyn oo oran karno dadka ay lixdan da'da ka yartahay iyo dadka yarka oo difaaciyo dadka la jaar ama la nool xanuunada gaarka ah maxaydaan difaaca jirka hoos biga sida HIV AIDS iyo xanuunada la yaqaan TB xanuunada dadka qabana waxay ugu jiraan halis markaas sideen ugu hortagi karnaa markasta waxaan ku hortagi karnaa inaynu meelaha buuqa aynu iska ilaalino sidoo kale inaynu xirano markasta gloves iyo mask face inaan xirano mid inaan badino biyaha cabkooda in waxyaabaha badino khudradda sida liindhanaanta iyo waxyaabahaas inaan isticmaalo marka waxa la inooga baahan yahay qof kasta oo la arko ka shakiya abaas isku arka xanuunkan inuu sida ugu dhaqsaha badan goobaha caafimaadka oo la xiriiro si baaritaan loogu sameeyo bulshada kalena looga xakameeyo ayaa maxaadalnaa xanuunka wali looma hayo wax dawo ah oo caalamku ma hayo laakiin se waa la tacaalaya oo inta aanu qofku oo xanuunkan aanu sababadiisi aafeen ayaa tacaali la sameyn doona insha Allah intaas aynu ku soo gabagabayno. Assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.